degdegna soo gaaraya sheegay Iiraan oo ballan qaaday inay ka jawaabi doonto xadgudub kasta oo Mareykanka ka yimaada heshiiska afgaradka. Iiraan oo maanta sheegtay inay si degdeg ah uga jawaabi doonto xadgudub kasta oo Mareykanka uu sameeyo heshiiska afgaradka ee lagu doonayo in lagu afjaro dagaalka Bariga Dhexe, kadib markii labadii dhinac ay isweydaarsadeen weerar dhamaadkii toddobaadka. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan Ismaaciil Baaqaa'i ayaa shir jaraa'id ku sheegay wax tallaabo oo jawaab la'aan ah kama aanaan doonto sida ay muujinayaan ciidamada qalabka sida Iiraan. Weerar kasta oo lagu qaado Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iiraan waxaa si degdeg ah looga jawaabi doonaa. Wuxuu intaas ku daray in tallaabooyinka noocaas ah ay yihiin xadgudub ku ah qodobada koowaad ee heshiiska is-afgaradka, isagoo xusay in haddii xadgudubyadu sii socdaan ay adkaan doonto in la sii wado hirgelinta heshiiska. Heshiiskan ayaa waxaa haya tijaabadii ugu horeysay kadib markii Iiraan iyo Mareykanka ay markii ugu horeysay isweydaarsadeen weerarro tan iyo markii la saxiixay heshiiskii 17 Juun. Warbaahinta rasmiga ah ee Iiraan ayaa sheegtay in Teheraan ay beegsatay saldhigyo Mareykan ah oo ku yaalo khaliijka, taasoo ay ku tilmaamtay jawaab gudaha Iiraan. Dhanka kale, Washington waxay ku eedeysay Teheraan inay weerartay markab ganacsi oo Mareykanka ah oo marayay marinka Hormuz, kana way eedeysay Iiraan way weerartay Mareykanka weerar Iiraan ugu jawaabtay. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan ayaa sidoo kale caddeeyay in xiriirka u dhexeeya Teheraan iyo Washington uu ku socdo wadooyinkii siyaasadeed ee aan ahayn wadooyin militari. Baaqaa'i wuxuu yiri lama sameyn wax isgaarsiineed oo u dhexeeya labada ciidan. Xiriir wuxuu u dhexeeya hay'adaha siyaasadeed ee labada dal. Dhinacana waa wasaaradda arrimaha dibadda, halka dhinaca Mareykankana ay tahay hay'adda arrintan khuseeya. Warbaahinta Axios ayaa 28 Juun iyadoo soo xiganaysa ilo ogaal ah sheegtay in khadka tooska ah isgaarsiinta u dhexeeya ciidamada Mareykanka iyo ilaalada kacaanka Iiraan IRGC ee loogu talagalay isku duwidda dhaqdhaqaaqa maraakiibta ee marinka Hormuz aan weli la howlgelinin. Marka qodobkan in la soo wadaago waa Iiraan iyo Mareykanka oo isku jawaabay, xaaladana loo sahlay noqotay. Marka wixii kusoo kordho qodobkan waa inuu maanta hadduu Ilaahay yiraahdo waa inuu soo wadaagi doonaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wanaagsanaa.